بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا ونكسن دمان حتى عاشق جوب كستا يجور كستا شوكتان وبرنامج يعني افتيمينتا وألمات اسكود التاجنو محاكا سو عصبون هذي كيسكي دلكي عاقلكا شلي كوحدي أفريقيا مركي تاجن مامول كبوتلان maxay soo gudbiyeen xaaladiisa halkay ku dambeysay caaqilka sababta lagu dilay iyo qofka uu ahaa ayaan rabaa inaan isdul taago qodobkana labaad waxa isku dul taageynaa maamulkii Puntland oo ay la wareegtay koox madax ku tiya kuwaas oo maanta taagan Soomaaliya ka go'aynaa ma maqlishada awrka ka horeeyo sanqaadkiisa leeyahay nimankii argagixisada ahaa SNM wadadoodii baa la maraya soota iskaalo wadadeedu qodxayaa lahayd wadadii qodxayaa lahayd ee 34 sanadood dadka Soomaaliyeed ee Hargeysa iyo Burco ku dhaqan lagu maaweeli jiray eegay balse shacabka reer Puntland lagula soo dhici waayay ayaa had la rabaa tartiib in loo mariyo Soomaalidu waxtaada bidaari sibiq bay kugu gashaa labada qodob bas dul taagay hadii barnaamij soo gaarsiin share garay hadii salaad ku joogtaan u soo tuko hadii kale nabiga sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waayahay ninkii juxo madax higlo ayaa maanta hadlay oo qodobkeena koobaad wuxuu yiri Soomaalidii saddex bay taagan yihiin golo taagan waa go'aynaa anagoo reer Puntland waxaan taaganahay konfederaal macnaheedu waxa weeye talada qabiilada in gacanta loo geliyo wax kalena aan la soo bixi karno qodobka saddexaad waa dawladda dhexe ee Soomaaliya oo aan kala adkaano bal intaana falanqayn qodobkeena koobaad ila dhageysta juxa waa kane wuxuu ku hadaaqayo waxuu sheegay lama oran kale kala joognaa meel Soomaalidu kala aamin baxday waxaan isku haysanaa maanta dastuurkii iyo dawladiskii baasaboorkii iyo aqoonsigii mashaariicdii iyo kulaygii baryada shahaadadii iyo adeegyadii waxa taala aragtida ah aan kala tagno Somaliland ayaa horkacaysa waxa taala aragtida ah aan kala adkaano dawladda dhexe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taasina horbacaya aragtida federaalka ama konfederaalka wax kalena isu bedeli kartaa oo Puntland wali ay ku doodayso si fiican baad u dhageysteen oo uga bogtaan normal ninka sidan inoo hadlayo juxe dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay taagan tahay aan kala adkaano oo awoodda dawladda dhexe ha yeelato oo baasaboorka iyo waxbarashada iyo lacagta iyo dhaqaalaha iyo wax kasto Soomaali leedahay gacanta anaga ku haynayna iyo ku hayn meesaan konfederaal ka dhigo qabaa'ilada talada hal loo dhiibo halka Somaliland iyo nimanka isaaqna ay taagan yihiin waa go'ayna anaguna waji kala noo qarsoon buu leeyahay konfederaalka wax kale inuu isu bedelo waa la arkaa waa dib jir qofka nooca u hadlaya waa dib jir taladii iyo aqligii iyo garashadii iyo hanaankii iyo dawladnimadii reer Puntland iyo aqoontii reer Puntland waxay ku soo ururtay maanta Saciid Hulumbe iyo Juxa madax higlo ninka buuga ku soo qoray gabar Soomaaliyeed anoo ka sinaysanaya baan ku iri sintinow ya ambarkaagu waa imisa magsaanaagti Etoobiyaanka ay hoos igu dhigtay lacagtii magasaan ku iri gabadhii Soomaaliyeed intaan u tagay walaal Etoobiyaantu hoos bay u dhigtay ambarkaaga adigana garanaysa ninka isagoo sinaysanaya oo gabar Soomaaliyeed waliba caayaya eegay waliba deegaan Soomaaliyeed ahaa buugta inoogu soo qoray ayaa maanta wuxuu nooga warramaya konfederaal wax la yiraahdo iyo qabyaaladii Soomaaliya in la kala gooyo aragtidayda iyo shacabka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed waxay ka qabaanna eegay aan idin la wadaago anoo matalaya afkooda ku hadlaya dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh ha xumaado ha samaado anigu meesha ma keenin shacabka reer Puntland ma keenin shacabka Soomaaliyeedna ma keenin waxa keenay niman baarlamaan sheeganaya oo tuuga oo lacag haysta oo Saciid Hulumbe koow ka yahay oo suuq dhaqaalaha ku bixinay ayaa horta ninkii liyaado Xasan Munaafiq keenay anagu ma nakin wuxuu yahayna waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed way saas ku magacaabay mandatekiisina ma dhamaan dawladda dhexe marka xaq waxay u leedahay wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed leedahay xuduud lacag baasaboor waxbarasho cirka dhulka badda cidda mas'uulka ka ah waa dawladda dhexe ee Soomaaliya caasimadu waa Muqdisho madaxweynuhuna waa Xasan
محمد جري يهود أنت كنا بتاعي نبي كعورسة عليه الصلاة والسلام سعيد هلوبو شري أديك النوك يعني حسن منافق أديك ما تكعبنا إياه واحد دون يسدد 5 مليون أو ريال بوتلان ليرادو إذا الله قد جوستد وعقلية ديريت الرقيس كهيد الدلي كهيد هرجيسية برع شعب كتشوين تلولة تقول لك دادعي إن هذا الله لك دادعي شو شو واحد أدنى وريسان مانتا يكوحنا بوتلان فيروس لياده حنونكا واحد أدنى وريسان هرتينشيرا وايي سومالي نجمع جوين كرتان مي الله وما صعنه دولة الدحوة دولة يدي اجي هداد حسن منافق اسديدين إذن كاسديدي وحيرهوتي هاتو لبا هاربو محاد صوترتين هوتي هاتاتين لبا توب بعض حيدين وحلا يري لبا دي بالي ظلم يكوشي سهل دا عاد يكوديريدان أنا نما جوينيست كونفدرال أو wax kale isu bedeli kara hadii dunida dhinaca kale loo rogayo qiyaamuhu haduu dhacayo qorraxdu haday galbeed ka soo baxayso dayixuna madoobaanayo buuruhuna waxa weeye dumayaan eegay dunida la waayo annagu meel uma socono Soomaali baan nahay caasimadayaduna waa Muqdisho calankaygu waa calanka bluega jamhuuriyadda Soomaaliyeed baanu ka mid nahay ummad Soomaaliyeed baanu nahay warkaas ma ku galay juuxa madaxigloy warkaas ma ku galay aabaha iyo nimanku aqoon baad indhaha isku qabanaysaa sheekada yar caanteynka ee doqoniinada ee aqliga xun ee liita war dadkii waa koreen aqliyadoodii baa kortay kuwii 4 sano waxa loogu soo sheekeynayay baa maanta waxa weeye tufay markaa waxa doonaysaa maanta dad ilbaxa oo gudbay oo wax bartay oo adduunka galay oo lacag qalaad wax ku iibsaday oo wadamo badan maray oo gaajada iyo faqriga iyo baayo hoog iyo balanbaka iyo dawlad la'aantu waxay tahay soo arkay inaad maanta ka dhaadhicisay oo garow joogo 10,000 dollar qaata islaamaha masaakiinta tabaandhada injida ku iibiyo xoolahooda cunaya eegay habeenkiina gabdhaha yar wax qaraysayo hooyooyinka cashuurta ka soo qaataad lacagta kula tumanaysan baabiinaysan oo mustaqbalkiisa jiraan caruurtina darooga barteen qaarna soo taariibay inaad waxa noola timaadaan naga daalin baa tahay cidina waxa ka dhageyshin mayso qodobkeena labaad caaqilkii Umar Cabdullaahi Allah yarxama nimankii dilay shalay waxay tageen garoowe waxay la kulmeen Saciid Huluumbe iyo wiil adeer u yahay iyo nin seedigiisa waa taliyaha sirdoonka iyo kan BNBF ta haysta oo Cabdirabbi la yiraahdo iyo Aamin Xaaji Khayr iyo ninkii loo rajiray Saciid Huluumbe taliyihii ciidanka militariga daraawiishta Puntland wasiirkii amniga albaabka laga soo xiray waxa la yiri niyow Saciid Huluumbe wixii aad noo sheegtay wax qaldan bay ahaayeen ninkaan anaga ku tagnay markii su'aalaha damcayn laga weydiiyana waxa dheen ariga waxa faaqfaaqi meeyne waxa way sidaas lagu dhaafayaa caaqilka marka sababta caaqilka loo dilay iyo waxa uu haystay iyo wuxuu galabsaday ee lagu malgay baan rabaa inaan idin sheego caaqilku horta wuxuu lahaa buur dhan oo macdan ah oo macdanta tiinka la yiraahdo ee qaraxa laga sameeyo qaraxa baaruuda qaraxa ah laga sameeyo horta caaqilku haystay caaqilku nin milyaneer abu ahaa nin ilaahay xoolo siiyay buu ahaa buur ku taala meesha liyada milxo ayuu caaqilku haystay buurtii baa la damcay imaaraadku damceen caaqilkuna waa diiday warku soo macada caaqilku wuxuu ka mid ahaa hantiilayaasha buurta calmadow ragga wax ku haysta ee dahabka iyo maqanaysa macdanta culus ee tiinka liyaada ka gurta buu ahaa buur buu kaligii haystay caaqilku in kala la wadaagayna waa la sheegay tiin la laakiin buurta inta badan caaqilka haystay caaqilku buurta tiin buu ka gura jiray tiin wax la yiraahdo waa qayb baaruuda qaraxda kamida baaruuda qaraxa samaysa wax kasto oo dhug yiraahda waxa qarxiya ayaa laga heli jiray macdan abuurta caaqilka waa loo yeeray waxa la yiri buurtan aan kugula dhuuqno caaqilku waa diiday sidaa darteed ayaa caaqilka loo soo afjaray Africom hadda markay shalay warbixintii ugu dambeysay Africom ay bixinaysay sarkaalkii iyo safiirkuna wuxuu sheegay in ay sameeyeen hawlgal laakiin hawlgalkaas aanay faahfaahinayn haddii ay faahfaahiyaanna ay wax u dhimayso dhibaatana ku keenayso hawlgalkii ay sameeyeen
inta badan nimankan Africom ama Mareykanku waxa ay sameeyaan ama qofka ay dilaan xogtiisa oo dhameystiran bay soo qoraan magaciisa dhalashadiisa meesha ku dhashay meesha lagu dilay wuxuu ka tirsanaa caaqilka ilaa iyo hadda waxa la hayaa 13 September ayaanu halka waxa weeye qarax ka geysanay duqeyn ka geysanay cid la duqeeyay lama sheegin magaciisa lama sheegin argagixisay inuu yahay laguma sheegin shalay markii la weydiiyayna way ka gaabsadeen arrinka marka si aan loo ogaan Saciid Hulumba wuxuu soo kaxaystay wiil uu adeer u yahay oo Puntland ba madaxweyne ka ah Cabdirabbi ninka la yiraahdo isaga Puntland madaxweyne ka ah cid ka daba hadli kartaa ma jirto qoys baan la qabsaday kolay baan ku jirnaa kolay nin leeyahay bay Puntland ku jirtaa baladeegi wixii hore wax u daa been wixii hore quba baan ku xasan baa wax burburiyay xasan baa wax xunay caruurtiisu wata Saciid Hulumba ka daran ciyaalku adeerka u ahaa walaalkii walaashii kay dhashay kay inaabtiga yihiin gabadhiisa wiilkiisa waa company waa kala qaybsan tahay madaxweynaha Cabdirabbi liyaado oo dhibica baaba ka aba wadanka baladeegi shirkii maalinka dhaweydna laba nin baa soo fariistay waa seedigii iyo wiilku adeerka u ahaa iyo ciyaalku adeerada u ahaa kaliya fadhiyay meesha wax allaaliya wax ka soo baxay ma jirto marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego caaqilka sababta loo dilay caaqilku hantiilu ahaa buurta calmadow buur dhan oo waxa weeye macdanta qaraxa laga sameeyo ayuu haystay sababtaasana loo dilay markii la weydiiyo la yiri aan kugula dhuugno wuu diiday imaaraadka waxa weeye warbixin baa laga bixiyay farta lagu fiiqay argagixisa la yiri saddex gantaal baa lagu dhuftay Mareykankii baa yaaban hadeer wuxuu ku jawaabuu la yahay Mareykanku waxba ma qariyo laakiin waxaan idinku bishaaraynayaa saddexdii biloodba Mareykanku waxa uu sameeyo dib u eegis buu ku sameeyaa arrinka caaqilka Allah u naxariistay dib u eegis baa lagu sameynayaa saddex bilood kadib war baa Mareykanka ka soo bixi doona sheegaya sababta caaqilka loo dilay in lagu khaldamay iyo information khaldan iyo wacaal khaldan la siiyay Mareykanka ummadda Soomaaliyeed ha ogaato dadka reer Puntland ha ogaadaan warsangeli ha ogaado caaqilka waxa imaaraadku u dilay buurta macdanta qaraxa laga sameeyo oo caaqilku haysto caaqilka taawura uga taagan taawuro milxadeen dadka reer Sanaag waa garanayaan milxo iyo taawurada ka taagan in caaqilku lahaa halkaan uu wax weey macdanta ka guran jiray macdanta nasi iyo ku siin meeno iyo gantaal shalayna wax warbixin oo ka soo baxay ma jirto cid allaali cid la joogtay ma jirto Saciid Hulumba iyo wiilku adeerka u yahay iyo seedigii afarta qof iyo ciyaal oo adeer u yahay meesha farfadhiyay waa inta wax ka soo baxay ma aragteen saxna leeyahay hadda confederal Soomaaliya ka go'ayna ha Saciid ninkii Xasan Munaafiq waa cadow aabaha iyo nimanka aqoon baadnaha isugu qabanaysa been iyo propaganda iyo sheeko jilicsan oo niica oo dadka Soomaaliyeed lagu lugoyo way soo dhamaatay inta dhagtaa gelino baanu taa ka saareynaa warkaaga wax allaaliya waxaad ka hadlaysidna cid kugu raacsan iyo cid u soo jeeda iyo cid kugu qaabilaysa iyo cid ogol ma jirto dadkani waxbay bartay waxbayna fahmeen dadka reer Puntland lama khaldi karo Puntland waxay u baahan tahay dib eegis dib in la isugu soo noqdo wixii shalay la dhistay dib loo eego intaan xaaladdu faraha ka bixin dadka reer Puntland in ay iscunaan bay marayaan fakhriga iyo gaajada meesha kolay nin leeyahay baan ku jirnaa kolay nin leeyahay wax walba oo soo dhaca ilmadani bay ku dhacaan ma soo dhaafaan kugu koobamano kuma soo dhaafo ilma geesood dhaafi maayaan iyo bes wixii soo dhaca waa ilma geesood baale dani iyo caruurtiisa iskale mashaariic baan jirin waxbarashaan jirin nolol baan jirin dekad baan jirin elabor baan jirin meel walba Puntland waa xidhan marka sax leeyahay Muqdisho cadow inagu ah hawiya cadow inagu ah Xasan baa ina diidan maxaa Xasan iga galay aniga Xasan Muqdisho joogay aniga Xasan cashuur buu iga qaadaa aniga cashuur miyuu iga qaadaa Xasan badakadaydu cashuur ka qaadaa ma shacabkaygu cashuur ka qaadaa bal waxaad ummadda ugu sheekaynaysaa confederal baan rabnaa confederal caruuray dhilo wax dhabay weeday caruuray dhilo buu yiri wax dhabay weeday wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan bul la isaga dhimayne eegay ama taqalalan baad qaadaysan wada dhuxleed la idin marinaya eegay ama futaad dhulku ku dhufanaysaan oo gobonnimadii
iyo maamulkii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed lahayd baa dib ugu soo noqonaysaan Muqdisho iyo dawladnimada iyo calanka annaga adeer dhiig baa nagaga baxay deecaan baa nagaga baxay cashuurteed baa lagu dhisay madaxtooyada maanta maarta Cabdullaahi Yuusuf Soqon shilin Allah u naxariistay Muqdisho galay 20,000 oo wiil oo daaro Ismaaciil baa ku maqan bil kasta 350,000 oo dollar baa dekada boosasa laga qaadi jiray oo shacabka reer Puntland laga qaadi jiray muddo 3 sano naf iyo maal ba waa gelinay dawladnimada juxe iyo Sacuudiyuun baa anaga dawladnimada nama dhaafi karaan been iyo bood isku qarin iyo ummadda dhibaataynaysaan iyo dhiig yacbadaatiin iyo damowgaatiin ma qarinayso xasan waa madaxweyne Soomaaliyeed wala la xisaabtamaya laakiin diga ka sokeeya war barnaamijkaasi shargaray khayr iyo baraka diiri jariya waa walaaka aftax boodar taniya tadubku dul xadkatay warsanay nabadino wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh